wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa xilalka u kala wareejiyay taliyaha cusub ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Ibraahim Sheekh Muxyidiin iyo taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Generaal Odwaa Yuusuf Raage. sidoo kale taliyihii hore ee ciidanka dhulka Generaal Maxamed Taaliil Biixi ayaa xilka ku wareejiyay taliyaha cusub Generaal Axmed Aadan Cali. wasiirka gaashaandhigga ayaa madasha ka jeediyay khudbad kooban. waxaa sharaf weyn noo wada ah inaan maanta u wada joogno maalin kale oo weyn oo sawir fiican ka bixinaysa horumarka dawladnimadeena iyo sida uu meel marka u noqday dhaqanka qorisku dhiibka ee ka tarjumaya biseelka iyo saldhigashada dawladnimadeena quradka ah ama urdanka ah. waxaan halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa walaalkay sareegaas Odwaa Yuusuf Raage taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sareey guuto Maxamed Taaliil Biixi taliyihii ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo waqti adag u soo shaqeeyay qaranka Soomaaliyeed hormuudna ka ahaa guulihii waaweynaa ee laga gaaray la dagaalanka argixisada. waxaana u rajaynayaa mustaqbal wanaagsan iyo maalmo wacan oo farxad leh. sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa una hambalyeynayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareegaas Ibraahim Sheekh Muxyidiin Cadow iyo taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed sareey guuto Axmed Aadan Cali oo helay kalsoonida golaha wasiirada iyo tan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud si ay u hogaamiyaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. sidoo kale madasha xil wareejinta waxaa ka hadlay taliyihii hore ee ciidanka dhulka isagoo sheegay in sababta loo bedelay ay tahay arinta gobolka Gedo. waxaan leeyahay qolo walba mas'uuliyiintu meesha ay uga aadan tahay qolo walba meesheeda ha ilaaliso. waa soo koobahayaa waxaan rabaa xogaa kaftanna way tahay kaftanna way ka xoog badan tahay. Odwaa aniga Odwaaba in la bedelo waa sunno dawladnimaduna waa sunno laakiin anu waxaan is leeyahay waxa la ii bedelay waa gobolka Gedo. Odwaa maxaa loo bedelay aniga qadiyada la igu bedelay waa qaale Odwaa malaha waa tii sunnada maadaama aan gobolka Gedo magacaabay. waxaan leeyahay gobolka Gedo ka shaqeeya midnimada Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada ka shaqeeya midnimada Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada. waxaan leeyahay qadiyada qof ma lahan ee ummadda gobolka dadka degan oo dhan baa iska leh. ayadana intaas aan ku soo koobayaa. waxaan rabaa inaan u duceeyo una hambaliyeeyo taliyaha xoogga iyo taliyaha ciidanka dhulka cusub. ilaahay ha idinla garab galo ilaahay ha idinla garab galo ilaahay ha idinla garab galo.